بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكلنكي جمعها ونوجا جوابين سؤالهن iyo isweydiimaha aada iska warsanayseen xaqaiiqda dacwada kuna saabsanaa kulligiiba dacwat اlxaq, dacwat ucbud اllaha maa lakum min ilaahin hayruhu. waxaan soo joognay kulamadii ugu dambeysay aanu ka hadalnay inay jirto oon aada u tilmaannay mushkilad weyn bini aadamka maanta inay haysato. mushkiladaas inay kaga timid inay allah subxaanahu caza wajalla u dhabarjeediyeen kadib markay u hoggaansameen xadaarad aan ilaahay aqoonin, rasuulkiisa aqoonin, aakhiro aan garanaynin, bini aadamkana u horseeday baaba iyo hoog mar haddii ay jidka ilaahay ka leexatay subxaanahu caza wajalla. taas waxay keentay marka aadanaha dhammaan meel kasta uu joogo dabagalkuu dabagalay inuu ku khasaaray. gunaanadkan soo gaarana waxay ahayd khasaaraha ugu weyn inuu ka soo jeedo, bal saldhig bay u tahay dadku inay garan waayeen cibaadadii allah subxaanahu caza wajalla iyo u gaaryeelidii cibaadada allah subxaanahu watacaala. asmooyinkaasi asmada ugu asalsan ay tahay asmat almacbuud, kii macbuudka ahaa ee inuu xaq u laha in la caabudo la garan waayey kadib meelo kale la aaday. barnaamijka isaga kusoo dhawaad mar labaad waxaa igala qayb qaadanaya walaalahay alustaad sheekh maxamed cali mire maxamed najiib, walustaad sheekh cabdirashiid sheekh maxamed wali abubakar, doctor cabdiraxmaan taahir uweys, doctor cusmaan cabdulla rable. kusoo dhawaad walaalayaal mar labaad. yani barnaamijkii tahanaha noo ahaa ilaahay uuna waafajiyay subxaanahu caza wajalla inaan wax badan oo wanaag iyo khayr ku jiro aan ka hadalno, shar badan oo bini aadamka ku socotane aan kaga digno maarta. alxamdulilah rabbi alcaalamiin. su-aalaha yaalla waxaa ka mid a wax badan bay jamaacad saadicuun bilxaqi ka digtay, shar fara badan oo taalla macnaha oy ugu weyn tahay allah subxaanahu caza wajal oo la garan waayo macnaha. marka dadku waxay leeyihiin annagu ilaahay waaba caabudnaaye shartana haystaa maxay tahay macnaha. marka waxaan u baahannahay dadku inay ogaadaan ilaahay cibaadadiisa aan sharta maata yani oo cibaadada ilaahay ee sharta looga badbaadaya waxa ay tahay. cibaadada khaldan ee shartu ka imaanaysana waxay tahay aan kala aragno. cubuudiyada musiibada keentay ee bini aadanka asmadan ka soo sheegay inuu horseeday inaan macnaha fiirina loo baahan yahay. waxaan ka codsanaya sheekh cabdirashiid inuu noo daafuro maxay tahay macnaha sharu hadi alcubuudiya inuu xambaarsan tahay macnaha. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. sidoo walaalkay Dr. Yusuf u soo sheegay runtii dad fara badan baa waxaa laga yaabaa inaysan garanaynin cubuudiyada macnaha aan ka hadlayno ama adoonnimada aan ka hadlayno. sidaa daraadeed macnaha waxaan u baahannahay marka hore inaan waxaan bidhaamin ka bixino cubuudiyada mataqaana maanta dadka ay ku jiraan oo laga yaabo inay dad badan u haystaan inay ilaahay caabudayaan iyagoo macnaha maartay gawaan raacay oo tubtii cubuudiyada loo mariyay macnaha ka leexday. inaan marka hore mataqaanaa macnaha xaqiiqo jirta aan qarin oo ah qofka bani aadamka ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu abuuray inuu addoon isaga u noqdo. marka taas macnaha waa qadiyo oo macnaha maartay yani aan macnaha niqaash iyo macnaha dood iska furnayn. insaankan inuu ilaahay u abuuray cibaadadiisa taana waxaa daliil ilaahay hadalkiisa macnaha wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun. marka cubuudiyadaas ilaahay uu leeyahay insaanka iyo jinkii macnaha ayaan u abuuray. haddii macnaha insaanka uu ka leexdo ma dhici kartaa inuu macnaha waxaa weye addoonnimo macnaha kale inuu ka badbaado? ma dhici karto. sababto waxaa weeye insaanka naftigiisa waxaa lagu abuuray inuu addoon macnaha maartay noqdaba oo waa insaan baahan weeye. yani macnaha faqri daati ayaa jiro oo ah qofku inuusan isaga wax allaal wuxuu u baahan yahay inuusan qabsan karin. marka waa inuu awood kale ku tiirsan yahay. awooddii ilaahay subxaanahu watacaala hadduu ka leexdo waxaan shaki ku jirin addoonnimo kaluu macnaha ku dhacaya. marka addoonnimadaas uu ku dhacayo iyo addoonnimada ilaahay subxaanahu watacaala ayaan rabnaa xoogo inaan macnaha waxaa muqaarana ama isbarbar dhigno mid la arkaba macnaha faa'iidada ay leedahay iyo khasaarada ay leedahay mataqaana cubuudiyada ligayr illah. ilaahay cubuudiyadiisa haddii macnaha dadka ay ku toosaan oo ilaahay addoommo u noqdaan waxaan shaki ku jirin dadku macnaha way xoroobayaan.
waxay dareemayaan karaamo iyo sharaf iyo cizi ilaahay subxaanahu watacaala inuu macnaha siinayo adduunka aakhirana uu ku abaalmarinaya macnaha jannatun carduha samaawaat walard iyo ilaahay macnaha aragtidiisa. laakiin middaas iyada ah haddii la waayo waxaa dhacaysa mataqaanaa in dadka ay galaan cabuudiye macnaha aad iyo aad u hooseyso oo dulli mataqaanaa maarata bani aadamkii ay macnaha dhexlayaan. ilaahay isagoo tilmaamaya cubuudiyada ilaahay qiimaha ay u leedahay insaanka wuxuu leeyahay acuudu billahi min ashaytaan rajiim man kaana yuriidu alciza falilaahi alcizatu jamiican. markii ninkii raba ama qofkii raba inuu macnaha sharaf iyo nolol wanaagsan ku noolaada ilaahay subxaanahu watacaala ayaa cizigoo dhan uu u sugnaaday. sidaa daraaddeed qofkii wanaag raba ama sharaf raba ama sacaado raba waa inuu ilaahay addoonnimiisa u galaa. middaa waa midda dadka xoreynaysa oo ka dhigaysa inay macnaha sinaadaan oo qofka macnaha maarata xaakimka ama kan loo taliyaay inay allah keligiis ay macnaha u sujuudaan oo isaga keligiis amar ka qaataan. taas haddii la waayo maxaa niri waxaa lagu dhacayaa addoonnimo aad iyo aad insaanka uu ka hoos marayo yani macnaha xayawaanka. lan xayawaanka muhiimadii loogu talagalay ayuu gudanayaa. ilahay isagoo macnahaas tilmaamay wuxuu yihi walaqad dar'naa lijahannama kaiira min aljini walinsi lahum quluubun laa yafqahuuna biha walahum acyun laa yubsiruuna biha walahum aadaanu laa yasmacuuna biha ulaa'ika kalancaami bal hum adal. ilahay wuxuu leeyahy kuwaas xayawaanka macnaha mataqaanaa waa ka hooseeyaan. aayad kale ilahi wuxuu leeyahay waaladiina kafaruu yatamatacuuna wayakuluuna kamaa ta'kulu ancaam wannaaru mathalum. yani marka insaanka wuxuu macnaha maarata waxaa weye ka degayaa bani aadamnimadii ilahay iyo karaamadii uu siiyey xayawaannimo macnaha ku dhacaya bal sida aayaddii hore aan soo sheegnay wuu kasii hoos maraya sababto oo muhiimadii loo abuuray ayuu gar maray. baynamaa bahaa'imta ama xayawaanaadka muhiimadii loo abuuray insaanka ilaahay macnaha ugu talagalay oo ah in lagu intifaaca waa gudanayaan maarta. taas macnaha waa midda kale oo iyadana macnaha muhiimka inaan bidhaamin haboon ilaahay subxaanahu watacaala bani aadamka ma u baahan yahay mase uma baahan. ilaahay subxaanahu watacaala uma baahan. yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah wallahu huwa alghaniyu xamiid. bani aadamka ayaa alla u baahan subxaanahu watacaala. sidaa daraaddeed raxmatan minhu fadlan ayuu ilaahay macnaha wuxuu soo diray ergooyin macnaha tiro badan oo laga soo bilaabo aadam calayhi salaam ilaa nabigeena maxamed ugu khatimay. rusushaas muhiimada ay gudanayeen maxay ahayd in dadka ay macnaha ooga digaan addoonnimo oo macnaha dulli ay ku gelayaan inay macnaha ka badbaadaan oo ilaahay addoonnimadiisa keliya u soo laabtaan. taasaana macnaha waxaa weeye mutaysatay intaasoo macnaha maarata waxaa weeye yani rusul oo macnaha isdaba joogto rusulan mubashiriina wamundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala llahi xujatun bacda rusul wa kaana allahu casiizan xakiim. ilaahay rususha muxuu soo diray maca alindaar waatabshiir sidoo kale in dadka macnaha xujada lagu oogeysan dhin mataqaana maartay lowlaa arsalta ilayna rasuulan fanattabic aayaatika min qabli an nadilla wanaqza. marka laa shaka cubuudiyadaas ilaahay subxaanahu watacaala karaamadaas iyo sharaftaas ay bani aadamka u leedahay. markii ilaahay cubuudiyadiisa laga leexdana sida macnaha ilaahay aayadiisa uu nagu soo sheegay haddaan soo tilmaannay macnahaasaa dhacaya mataqaana. marka annaga macnaha waxaan rabnaa dadka inaan ooga diginayo oo macnaha aan leenahay shar cubuudiya ka badbaada. cubuudiyada mataqaana macnaha waxaa ka mid ah qofka hawadiisa inuu u hogaansamo hawadiisa inuu raaco maarta ama qof isagoo kaleentaa inuu u hogaansamo sharci u dejiyo uu ku dhaqmaayo. waxaan shaki ku jirin qofka mataqaanaa maarata waxaa weye dadka bax buu noqonaya karaamadii ilahay uu soo macnaha maarata iska qaadaya. qof isagoo kaleentaa oo saacadda ama macnaha daqiiqada socota waxa dhici doon aan ogeyn markuu amar ka qaataay waxaan shaki ku jira mataqaana in macnaha noloshoo dhan ay macnaha saa u daba rogmayso oo macnaha maarata dadka ay macnaha xayro iyo wareer uu ku dhacay sababto ah yani cubuudiyadaas oo mataqaanaa ilaahay ugu talagalay ayay ka leexdeen. marka waxaan rabnaa macnahaas isaga oo ah in macnaha addoonnimada aysan ahayn keliya soon iyo salaad waa manhaj lilxayaa waa nolosha macnaha manhajkii lagu hagi lahaa ilahay macnaha noo sheegay qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah wabidalika umirtu wa ana awwal. saasaa rasuulka ilaahi yani ilahay macnaha uu leeyahy macnaha ilaahay rasuulkiisa uu leeyahy saas oo la hadleen salaadayda iyo macnaha cibaadaadkayga oo xajka iyo noloshayda iyo geeridayda ilaahay baa iskale laa shariika lah cid macnaha la wadaagta male wabidalika umirtu wa ana awwal muslim.
taasaana laga rabaa noloshoo dhan marka ilaahay inuu hareeyaa la rabaa hadday tahay macnaha cibaado ilaahay loo guto hadday tahay mataqaanaa sharci ilaahay laga kulmo hadday tahay macnaha weyneyn ilaahay macnaha qalbiga laga weyneeya ilaahay oo keliya ayaa mutaystay saasaana macnaha rusushaas ay saas ilaahay subxaanahu watacaala usoo yani tatra macnaha israacraac ilaahay usoo diray si dadka looga badbaadiyo cubuudiyadaas ay macnaha maartay ay ku duloobayaan annagana midii macnaha rususha ay macnaha maartay dadka ugu yeereen dadka ugu yeereen wax kale ma wadana maartay wanaagoodan jecelnahay inay adduun aakhira macnaha liibaanaan baan jecelnahay mataqaana marka waxaan jeclaan lahayn inay macnaha u dhag raariciyaan dadka macnaha maartay macnaha naasixiinta oo yani ka naxayo oo wanaag iyo macnaha khayr la rabo adduun iyo aakhiraba dadkaasaana mataqaana macnaha maartay liibaanay u dhag raaricinayo aysan maqal mataqaana waxyaabaha macnaha kutirikuteenka oo mataqaana waxa uu dadka la rabo in lagu marnaababiyo macnaha haddaad ilaahay ka jeesataan oo ka carartaan oo ilaahay addoon u noqda idinla weynaato oo idinku cuslaato oo ka leexataan hadday addoonnimo la-aan dhaafi maysaan oo cid kale addoon u noqonaysaan cid kale haddaan addoon u noqotaanna haddee markaas macnaha in allaahii ku abuuro addoon u ahaato inaa addoon adiga kulima addoon u ahaato isbarbarig markaad garasho macnaha ficlan waa qodob muhiima haddaa allah ka cararto meel kale aad aaday oo aan runtii sharaf aadan ku helayn jazaaka allahu khayr bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan meeshaa kasii ambaqaadi lahaa runtii arrintaa la sheegayo oo bani aadamka mar hadduu ka leexdo inuu ilaahay addoon u noqdo uu ka dambeeyo kulliba meel istaagi mayee qolo kale u galaya maaragtay ee qoorta u galaya oo addoonka dhiganayso waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah alla subxaanahu watacaala qofka alla addoon u noqdo alla unbuu ka baqaa alla unbuu khayr ka sugaa wax kastoo nacfi uu rabana alla inuu hayo rumaysan yahay wax kastoo ka baqaana alla inuu ka badbaadi karo ayuu rumaysan yahay haddii alla intaa uu u rumey waayo waxaa dhacayso inuu waxyaalo badan u rumaysto inay dhibna u keeni karaan dhibna ay ka daafici karaan dheefna ay u keeni karaan waana caqiidada waxa noocaas oo kale qofka markuu rumaystane 100 shay inuu ka baqo oo noloshiisa dhan ay wada cabsi gasho ayaa imaanay hadda bal waaqica markaan u soo degno waxa weeye dadka caqiidada markay ka halaawdo oo alla keligii dhib iyo dheefba inuu u haayo ay arrintaa mugdi yar ka gasho waxa ku dhacaya waxaan arkaynaa in badan dadka hadda asnaamta dadkii caabudi jiray asnaamtaas iyo kuwa hor fadhiya oo asnaamta magacooda ku hadla waxay u rumaysnaayeen in dhib iyo dheefba inay u hayaan markaasaa xoolo loo qali jiray nadar loo geli jiray loo sujuudi jiray ka soo tag hadda maanta waxaad arkaysaa qofka caqiidadaa saxda ee markii iyagoo xataa islaam sheeganaya caamanimadooda iyo aqoon daradooda inay keento inay ka baqaan waxyaalo in laga baqa aysan ahayn qaar waxaad arkaysaa waxay ka baqayaan jinnigi iyo cafaariidi iyo waa kuwa ma aragtay mingis iyo boorana iyo walaade iyo boqolaal shay oo la leeyahay maaragtay iyagaa maray jinni baa maray kan baa maray wadaadkan baa wax ka qiiqina kaasaa loo tagaa xoolo baa loo geynaa nadar baa loo galaa waa addoommadaada badbaadi baa la leeyahay kharash baa lagu bixinaa qolaa ku shaqaysato meesha u fadhiisato dee jinni meel joogo wax cunaa ma lehe wax xoolaha la geynaa iyo waxa loo qalayo o dhan iyo waxa loo nadrayo o dhan oo sharadka loo galaya qolaa ku aqdaamata kuwaasuu ka baqaya hadday u xanaagaane ay bas tahay waxaad arkaysaa qubuurta iyo awliye maaragtay inta lagu sheegay qolo awliye intay qolo ka dhigta ayay qolo ag fadhisaa oo ay leeyihiin waa in intaasoo ziyaare waa intaa la keenaa intaasoo xoole waa in la keenaa qofkii owlaad raba waa inuu soo aadaa hadda qabrigaan ninkan ku jiro goor hor inti hadli mayee kuwa ag fadhiya oo maaragta ku aqdaamanaya oo dhahaya maaragtay haddii dibi aad keento iyo haddii neef hebel keento iyo intaa haddaad weliga u bixiso owlaadaad helaysaa ama ilmaha waa kaa jiran waa kuu bogsanayaan qolaa ku aqdaamanayso adoon waana baqaya culimmadii qaar baa maaragtay maxaan ku idhaahdaa uu ka baqaya oo hadba iyagoo socda imaanaho haddaan cidda intaasoo xoole laga siinin ama waxaas aan la siinin waa wadaadkii xanaagay balaayaa kugu soo dhacayso oo wadaadkaanow ma adiga maaragtay ma ilaah baa tahay dur iyo nacfi maad gacanta ku haysaa mar wadaadadii baa laga baqaa oo ayagana intay isbuufeen ku aqdaamanayo dadka caamada xoolihii ka dhameeyey oo ka guranaya ku kala qabri oo ag fadhiyaa ziyaartii sheekh hebel alla gaaree xoolaha wax alla wixii xoolo lahaayeen oo dhan bay daldalayaan ay maaragtay meeshaan geyn ayagoo xataa tabar laheenoo waxa uu wax ku keenay
maaragtay ilaahay og yahay ayuu ku qasban yahay inuu maaragtay inuu u bixiyo. waxaad arkaysaa nin xoogaa yaroo neefo ari meel iskaga haystay mid wadaadnaho calankiisa wata intuu yimaado ayuu maaragtay wax u soo qaado oo haddaan xoolo loo qalin ama aan wax la siinin xoolaha dhan ninka ba ayaanu u rumaysan yahay ama ilmaha u ka qaadana. mid baa yibir la leeyahay iyo maaragtay maxaan ku ihahdaa awlaaddii haddaan wax laga siinin wiilkii waaba dhimanayaa laleeyahay oo waxbuu akrinayaa laleeyahay oo meeshaa socdo laga baqbaqaya wiilkii la qarina maaragtay haddii la qariya xataa waa soo saaraya ayaan la qarinin hala siiya laleeyahay maaragtay. kam shay oo laga baqa qofkii noloshiisa xataa shimbirihii aba laga baqa maaragtay maxaan ku idhaha gumays meel maray iyo duka yimid alale balaayaa timid haddaan xoolo la qalin cidda waa baaba'aysa ma garatay. shimbirkii baa laga baqayaa masaskii xataa qaar ka baqayaan halkan maraa waxaa laga baqayaa iska dhaaf shimbirka canug baa jiraday war maxaa ku dhacay haad baa maraa lagu leeyahay habeenkii maraqaan oo kor maray oo balaayo wax laga daweeya. noloshii oo dhan baa dadkii waxay ku ciriirtowday 100 shay baa laga baqayaa oo xoolo loo qalaa oo hanti loo bixinaa oo wax kasta loo huraya oo si caradooda looga badbaado ma garatay nacfigoodana loo awliyada inagu hagoogsaa la yidhi ma garatay waxaa la yidhi maaragtay sharti nolosha dhan markaad gasho waxaad arkaysaa dadkii 100 shay oo ay ka wada baqayaan nacfina ka raadinayaan. alla keligiisaana haysta intaasoo dhan waxay ku tari karaan lama arko dhibna kuuma keeni karaan wuxuusan alla kuu qadarin dheefna kuuma keeni karaan wuxuusan alla kuu qadarin. bal hadda sharculcubuudiyada la sheegayo on leenahay war alla keligiis haddaad addoon u noqon wayso 100 kalaad addoon u noqonayood xoolahaada iyo wax kastaba u qadimaysaa oodna gariidaysaa meeshii qayle ay ka yeertaba ama shirbirkii qaaq yidhaahda iyo maskii dhaqaaqaba inaad ka cabsato iyo sheekhii kugu aqdaanta oo nacfigiisa asaga kaa rababa inaad ka cabsata ayaa imaanayso. marka waxaa la yaab le marka waxaasoo dhan oo laga wada baqayo jinniga ugu horeeya iyo ruuxaanta iyo maaragtay duulal baa maaragtay maxaan ku idhaha kusoo degay qofka laleeyaho laga wada naxnaxahood wax kasta loo qadimaya wax cilmi oo ay ku fadhiyaan haba yaraatee ma jirto wax daliil ahoo loo haya ma jiraan. inay hadda wax xakumaan oo ay awooddaas leeyihiin yaa sheegay. waxaan arrinta waxay ka falantaa waxaa jirta dadka bani aadamka shay cajiiba waxa dhaqanka iyo hiddaha iyo la yidhaahda oo mujtamaciisa uu ka soo gaaray wuu iska rumaysanaya. saan u arki jiray dadkii ka horreeyo ka baqbaqah u arki jiray iyadoo waxaan saan loo samaynaha oo laiska reeligelina saysan u canaagin u arki jiray waa iska qaatay. oo maxay ku fadhisaa oo ma asaa adduunka ma asaa dadkaan mau abuurtay ma samada u abuurtay roobkii baad arkaysaa meeshii alla laga raadi lahay in maarata meelo kale roobdoonkii lala aadayo laga raadinaya oo yaa sheegay inuu maaragtay maxaan ku idhaahdaa weligaan la sheegaa roobka u keenaya ama balaayadu xijaabaya ama yaa wax daliil ayaa u haya. wax cilmi haba yaraata ku dhisantay male laakiin waxaan khuraafaadka la yidhahda asaafidiirta oo caamada sideedaba ay rumaysato oo ay nolosheedii o dhan ciriiri geliyo wax kasta laga baqbaqaya wax cilmi ay ku dhisan tahay male waa un caado iyo dhaqan iyo hiddo dadkii intay arkeen ay iska rumays. meeshaa waxaan ka garanaynaa sideeda awood xoog le bay ku leedahay qofka dhaqanka iyo hiddaha waxa la yidhaahdo dadka ka soo gaareen bareeshar awood weyn oo qofka uusan khilaafi karin ilaa ay soomaali ka tiraahda caado la khilaafay carara bay leedahay mamahdooda ay ka mid noqoto war awooddan yaa siiyey waa mujarad wax laiska rumayso beenbeen awa waxaasoo dhan maxaa kaa xorey kara marka alla keligiis inaad addoon u noqotood ka dambaysoodna u rumaysa qalbigaada aad geliso dur iyo nacfi asaa ku ahaaya asmaa'da ilaahay addaar annaafic ayaa ka mid asagaana dhib oo dhan gacanta ku haaya dheef oo dhanna gacanta ku haaya meel kale ha ka raadin inta kale ka xurow raaxad u bixiy sida ilaahayba uu yidhi daraba allaahu mathalan rajulan fiihi shurakaau mutashaakisuuna warajulan salaman lirajulin hal yastawiyaani mathalan ma garan bal hal addoon oo hal nin leeyahay oo sayidkiisaas wuxuu ka raba le maaragtay maxaan ku idhaha inuu sameeyo yaqaanana sayidkiisa wuxuu ka raba iyo wuxuu uga xanaaga iyo addoon ay intaasoo nin leedaho qofba wax goonni a ka rabo oo hadduu kaas kale aado uu xanaaga oo ayaga rilageli waayey ku dhex wareeray labadaama isku mid ba ayadda saas bay leedahay. xaqiiqatan dadkan masaakiinta ah oo noloshoodii oo dhan cabsi iyo balaayo u laga baqaya ay noqotay oo kan riligeli ku dhex wareeray hantidoodina ay ku tagtay waxay kaga xoroobi karaan
alla keligiis inay addoon u noqdaan. waxaan xasuusanayaa doctor yani 80aadkii mar oo aan jubbada hoose dhex socnay oo dad badan xaqa ilaahay fahamsiiyey nin baa dareemay macnaha ilaahay keliya caabud dhadhanka ay leedahay markaasuu yidhi war islaamka maxaa ka fiican uu yidhi beerahaaga iska aad duurkaa iska aad webiga iska tag xoolahaaga dhaqo cid kale ha ka cabsina alla moogiya war maxaa ka macaan badan maxaa ku keentaan yidhi markaasuu yidhi hadde mar waliba waxaa leeyahay sheekhabel wuxuu yidhi sabdiga webigaan la tegin sheekhabel wuxuu yidhi maalin habeenkaasaan la dhihin midkaasnaa dhici doonto kanaa imaan doonto maalin sabdiga webigaan la tegin webi waa tego yidhi wax itaabtane ma leh yani wuu xorriyo u dareemay maarata ficlan aad iyo aad marka haddee allah subxaanahu caza wajalla keliya oo hoggaansan waxay leedahay runtii macnaha dhadhan kale ay leedahay oo qofka uu ku liibaanaya ficlan marka macnaha nagu soo korayso waxa weeye waxyaalaha loo addoon noqdo waxaa ka mid a dhaqankaas aabayaasha laga soo wariyey iyo waxaas khuraafaadkaas iskoraankoreyo la iska soo dhaxlay oo in laga xoroobo u baahan shartoodana waa midaas aad u muuqata ficlan jazaaka allahu khayran runtii walaalahayba say soo sheegeen yani dhibaatada ummadda ku haysata cubuudiyadaas ilaahay khayrkiis la caabudo runtii waxaa ka mid ah moodada ama faashinka waxa la yidhaahdo macnaha sideedaba qofku sida walaalahay soo xuseenba ilaahay subxaanahu watacaala markuusan caabudin oo ilaahay keliya uusan u hoggaansamin cibaadada kalena wax kale maaha ilaahay oo la ateeco weye subxaanahu watacaala sideeda cibaadada marka haddaad ilaahay ka dambayn weyso subxaanahu watacaala qolo kale ayaa gacanta u gelaysa qoryahaas gacanta loo galo marka waxaa ka mid ah waxaa la yidhaahdaa moodada ama ilbaxnimada oo ah dadkii in lagu xukumo xaggee laga xukumaya waxaa laga xukumayaa habkay u labisanayaan habkay madaxa u jaranayaan waxaasoo dhan dad baa u dejiyey dad baa maarata meel u fadhiya qofkii marka damcaha inuu ka baxana waxaa leeyahay may waxaa weye adiga ilbax ma tihid reebaadiyaa tahay mutakhallif baa tahay khashiin baa tahay waxaa weye lama socotid moodada qofkii marka yani hadduusan ilaahay subxaana watacaala tawxiidkiisii saxaaxa iyo wixii ilaahay u abuuray iyo xaqii ilaahay usoo dejiyey uusan qaadan waxaa weeye kuwaasu gacanta u gelaya marka ayagu adeecayaa waxaad arkaysaa labis aan qurux badnayn qofkii oo qaadanaya waxaasoo dhan marka waa faashinkii iyo moodadii socotay iyo xadaaradii socotay war ha ka harin qofkiina wuxuu isu arkayaa marka qof dib u dhac ah oo mutakhalifa oo ummaddii ka haray marka runtii cibaadada dadku ay caabudayaan oo arbaabta ay samaysteen ama aalihada ay samaysteen maahan keliya madaxda wax u dejinaysa maahan baarlamaanka wax u dejinaya ma ahan keliya laakiin waxaa jira arbaab kaloo dadkii u samaysatay oo ah moodadii iyo faashinkii halkaa waxaan ka fahmaynaa marka runtii qiimaha tawxiidka uu leeyahay iyo ilaahay keliya inaa ka dambayso subxaanahu watacaala maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala dadka wuxuu u ilaalinayaa arwaaxdoodii waa loo ilaalinayaa ma garanaysaa maalkoodii waa loo ilaalinayaa cirdigoodii waa loo ilaalinayaa maxaa yeelay alla keliya ka dambeeyaan alla keliya u hoggaansan yihiin alla keliya amarka qaataan laakiin dhibaatadan kala duwan oo midba meel uga imaanay sida walaalahay soo xuseenba waxaa ka mid ah midda tan oo ah iyadana in dadkii laga hagayo oo laga maamulayo oo looga talin lahayo say u noolaan lahaayeen say u dhaqmi lahaayeen say guryahooda ka yeeli lahaayeen say ka yeeli lahaayeen socodkoodii xataa waxaa weeye waxaa la saa u soco tallaabada saa u qaad marka halkaasaa looga talinaya marka laa shaka dhibaatadeedana waxaa weeye dadkii baan ku arkaynaa oo waaqaca mushaahid ah waxaa weeye waxyaala dadkii aan u qalmin oo ilaahay subxana watacaala insaankii u karaameeyey oo leeyahy walaqad karamnaa bani aadama inaad arkayso asagoo sidii walaal usoo sheegay cabdirashiid macnaha xoolihii ka liita oo bal xoolihii ilaahay su abuurayba u nool yihiina asagu su u nool yahay xoolihii xataa waa kasii hooseeya marka laa shaka inay tahay shar ayadana ilaahay khayrkiis markaa caabudo dhibaatadaas inay dadkii la kulmaayaan maarta macnaha suldaan baa lagu leeyahay awoodaa lagu leeyahay xukumaysa inuu sidaas foosha xun leh u labisto wuxuusan ka bixi karin bay noqotay haddana yani u labisto oo ku foolxunya waxaa ka daran inuu jeebkiisa ku bixiyo jeebkiisana ku bixiyo wixii jeebkiisa soo wax dhici karta biilkiisii iyo maxaan ku rahda gurigiisa ciriirin yahay si u raaligeliyo nimankaas fashionka u sameeyey ayuu saa mataqaana u qaadanaya isaga marka uu saa sameyna waxaa dhici karta inuu islahayn macnaha niman baa raaligelinaysaa laakiin barnaamijkii yaa la ah inuu niman raaligelinayo maxaa yeele waa qasban tahay adiga macnaha waa qasban tahayo khad laguu dejiyaadan marna aadan ka bixi karin marka ficlan waa qodob muhiima dadku inay ku baraarugaan aad iyo aad laga maarmaan u tahay ficlan aad loogu baraarugu baahan ficlan bismi illahi raxmaan raxiim intaas waxaan ku dari lahaa waxaa weeye cubuudiyadaas lasoo sheegay oo waxyaalahaas la caabudahayo cibaadaduna ay tahay in la ajiibo waxa ilbaxnimadu kaa dalbee
waxay kaa rabto in la ajiibo. takaaliifta ka imaanaysa inay ka daran tahay kana badan tahay takaaliifta allah subxaanahu wa tacaala cubuudiyadiisu ou ku bixinayo. jeebkiisa ayaa sidii lasoo sheegay ou ka bixinaya si uu u raali geliyo ilbaxnimadaas si uu ilbax u noqdo, nimankii ka dambeeya waxaana u raaligeliyo ayuu ku bixinaya. juhdiyo ku bixinaya, maaluu ku bixinaya, wuxuu ku bixinayaa akhlaaqdiisiiuu ka bixinaya, sharafkiisiiuu ka bixinaya, wuxuu ka bixinayaa danihiisii ayuu ka bixinaya. marka yacni waxaa weeye saasou maaragtay takaaliif oo aada iyo aada dhabarjabays u ah ayuu u bixinaya. koodhiyou bixinaya cibaadadii alla uu ka tegey oo alla subxaanahu wa tacaala uu ka jeestay oo isaga keyrkiisa u caabuday, koodhiga ka imaanaya ama canshuur ka adag ayuu bixinayaa oo ku bixinayaa cibaadada khayrullaahi oo caabudahayo. taas waa mid weeya. walaalahay ayaa ka soo hadlay sida loo caabudaya muxuu ahaa fashiyon, nimanka ka dambeeya arbaabil asyaa la yiraahdo, nimankaas sidaas ayaa loo caabudayaa. waxaa kaloo la caabudahaya oo waxa la caabudahaya ka mid ah nimankan dawaaqiidda ah oo allah subxaanahu wa tacaala sharcigiisii inta ka tegey waxay ayagu samaysteen, hawadooda ka samaysteen, dadkii sibqa sharciya intay u yeeleen, yacni waxaa weeye dadkii ugu yeeraya, dadkii ka dalbaya inay raacaan, inay fuliyaan, inay manhajkan ay raacaan. haddii la raaco, raacitaankaas la raacay waa muuqaalka ay leedahay cibaadada la caabudahayo dawaaqiidda ay leeyihiin. ninkan daaqiga ah waa nin isu sharaxay inuu istaago maqaamkii rabbinimada, maqaamkii ilaahnimada inuu istaagana isu sharaxay weeye. maadaama maqaamkaas uu isu sharaxay, dadkii wuxuu ka rabaa inay maqaamkaa gaarsiiyaan, inay weyneeyaan, inay gurbaan u tumaan, inay maaragtay u alalaasaan, inay u heesaan, inay maaragtay waxa u gabiyaan ayagoo ku ammaanaya, inay gurbaanka u tumaan, inay u garaacaan, wax allaale wixii maaragtay waxaa weeye isaga raaligelinaya oo ku raaligelinaya, yacni wax uu u arkayo in la weyneeyey, in la qadariyey, in maqaam sare la gaarsiiyey. saas maaragtay waxaa weeye waa muuqaalka cibaadada ay leedahay lagu la caabudahayo, daaqiya la caabudayo, daaquudka la caabudahayo. wuu ka dalbayaa dadkii arrintaas si ay maaragtay waxaa weeye midda kale ay asagii u waardiyeeyaan, danihiisii ay u oofiyaan, waxay ugu qabtaan. alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waittakhaduu min duunihi aalihatan lacallahum yunsaruuna. waxay mudan dadkii waxay samaysteen aalihay samaysteen. aalihadaasna waxay u samaysteen inay maaragtay waxaa weeye gargaar ay ka raadinayaan, inay u gargaaraanay rabaan. qoladan aalihada laftoodana waxaa weeye ayaga waxay u yihiin jundi muxdaruun ah oo ayaga maaragtay heegan u ah, difaacooda heegan ugu ah, naftooda u horaya, maalkooda u horaya, waqtigoodii u huraya, wax walba o dhan u horaya. ninkii daaqiga ahaa oo la caabudahayey ayaa kuwa caabudayay isaga caabudahayo o addoonsanayay ayuu wuxuu ka rabaa inay waardiyeeyaan, inay u khidmeeyaan, inay wax u qabtaan, inay leela nahaarin habeen iyo maalin u soo jeedaan oo asagiina gurbaan u tumaan oo ay weynayaan oo cirka ay geeyaan. marka waxaa weeye waxaas oo dhan waxay ka takaaliif weeye oo ka badan takaaliiftii alla subxaanahu wa tacaala cubuudiyadiisa ay ku bixin lahaayeen, ka badan ayay ku dhacayaan. marka waxaa nasiib darro ah, yacni waxaa weeye dadka iyagoo waxyaalahaas oo dhan u jeeda inay ku dhacaan cubuudiyat hayr illaahi, alla cubuudiyadiisina iyo addoonnimadiisiina ay ka tagaan. waa arrin iyo aada nasiib darro u ah. waxaan ogsoonahay waxaa weeye alla inuu yihi subxaanahu wa tacaala ina shara dawaabi
cinda allaahi aladiina kafaruu fahum laa yu'minuuna. kuwa kaafiriinta ah waa kuwa alla keyrka caabuda, kuwa mushrikiinta ah waa kuwa alla keyrkiisa caabudahaya. waxaa weeye wax alla abuuray waxaa ugu shar badan kuwa kaafiriinta ah oo alla keyrkiisa caabuday, cuudiyadii allana ka tegey, kuwaas ayaa ugu shar badan. aayad kale alle wuxuu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala ina aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina fii naari jahannama khaalidiina fiiha ulaa'ika hum sharu lbariya. saasay maaragtay waxaa weeye sababtoo ah sharu lcubuudiyaad ayay ku dhaceen. maadaama cubuudiyadtii ugu sharka badan ay ku dhaceen, waxay noqdeen waxa alla abuuray kuwa ugu sharta badan ayay noqdeen. aakharana jahanamay ku dambaynayaan haddii ay ku dhintaan, cubuudiyadaas ay ku dhintaan oo adduunka ay uga baxaan. dadka marka waxaa weeye waxaan u soo jeedin lahayn oo aan ugu baaqaynaa oo dacwadan ay ku wajahan tahay inay ka digtoonaadaan cubuudiyaad khayrillaahi ka baxaan, wixii dadkii ku jira ay ka baxaan, intaan ku jirin ay ka digtoonaadaan. cubuudiyadu ma aha wax kale, waa khuduuc, waa daaco, waa adeecitaan, waa hoggaansan weeye. ninkii u hoggaansamay nimanka faashiyoon iyo ka dambeeya, caadaadkii iyo dhaqankii ugu hoggaansamay inuu fuliyo wixii ay ka dalbayeen qabiiladii, wixii ay ka dalbaysay tolkii, wix allaale wixii caadaadkii ka dalbayeen ninkii u fuliya, dawaaqiiddii u fuliya waxay rabeen, cibaadada ku dhacay. saas ayaana cibaadada uu ku dhacay muuqaal rasmiga u ah. marka taa ayaan uga digaynaa dadkeena cibaadadaas ka baxaan. jazaaka allahu khayr. aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaan filayaa inta maantana daawanaysa inay aada u arki karaan bini aadanku sidiisaba waa addoon. addoonnimadana asal bay ku tahay, sayid ma aha bini aadanka. makhluuq weeye, makhluuq oo dhanna waa addoon. haddii uusan allah addoon u ahayn, cid kaloo addoon u ahaanaya macnaha. markaasay dakaatirada iyo mashaayikhda noo soo tiriyeen ciddaan allah ahayna addoon loo noqdahay dhibaatada ka dhanlaysa noo soo tiriyeen. waan filaya inay tahay wax aada iyo aad mudnaan gooniyo u leh inaanu ku baraarugno. hadday ahaan lahayd muctaqadaadka ama caadaadka iyo khuraafaadka aan aabbayaasheenna hore ka soo dhaxalnay oo hiddo aan u yeelanay ee suldaan nagu yeeshay, imise xoolo ah, imise xoog, imise macnaha oo sharaftaadii karaamadaada ayaa ku baxda macnaha. dadku waa isgaranayaan waxa ay ku halaagsan yihiin dadka khuraafaadkaasi u loogan ee dan iyo dunyo iyo noloshooda ku waayey. faahfaahin mayno aad baa loo garan karaa macnaha. sidoo kale dadka maanta xadaaradan ina tirtay ee faashiyonka iyo maxaan ku rahdaa moodooyinka loo soo dejiyey ee guryahoodii, baabuurtoodii, dharkoodii, labiskoodii, fankoodii, suugaantoodii oo dhammaan wada qaawanaan ah. dhammaan wada qaawanaan ah. qaawanaanta macnaha oo runtii mid daahira mid macnawi ku wada socoto oo haddee maxaan ku rahdaa qofkii u jeeda inuu ku foolxun yahay laakiin aanu ka leexan karin. maxaa yeelay dee faashionka nidaamkaa sida ah macnaha dee maxaan ku rahdaa casrigaa sida la socdo waata idaacaddu leedahay wixii cusub caalamkaa jecel macnaha. yacni marka qofku saa u hoggaansan yahay, haddee markii allah u hoggaansan leerin ilaahay wuxuu kaa dalbay subxaana watacaala, wuxuu ku faray, wuxuu kaa reebay, wax xadidan bay ahaayeen macnahayn. laa shaka aad bay u dhib badantay. midan kaletane haddee taaquudkan ilaahay ka furtaye bini aadan annagoo kale miskiin ah wuxuu rabaa inuu ilaah iska dhigo. si ilaah looga dhigane kharaj badan baa ku baxaya macnaha, boonboonis badan. waxaa loo jinidaya ciidamadii, hantidii ummadda dhan asaa loo jinidaya macnaha, xoolihii ummadda dhan asagay ku wada baxayaan. ammaantiisii, boonboonintiisii, ilan waa la buufinaya, waa bini aadan miskiinahe ilaah in laga dhigaa la doonaya. marka ficlan xaqiiqadaas macnaha aad bay u jirtaa sida yani loogu tacbeelay. marka waxaasoo dhan waxaa u samayseen kaalayo allah caabudo inaad ka carartaan macnaha, kaalayo ilaah u hoggaansama oo diintiisa soo gala inaad ka carartaan miyaa ku mutaysataan macnaha. hadda waxaan filayaa runtii mashaayikhda aad aad u mahadsan yihiin, dadkuna aad bay u arkayaan. yani waxaan isugu yeerayna waxa weeye ucbudu llaaha maa lakum min ilaahin hayruhu. alla u hoggaansanaada oo isu dhiiba, ilaah kale ma lihidiin. faashion ilaah maaha, taaquud ilaah maaha,
khuraafaadka awliyada ilaahay ma aha, dhaqan iyo hidde ilaah ma aha, awood ay leeyihiin ma jiraan, allah iskale intaadona subxaanahu caza wajalla. haddee macnaha ilaahay markii addoon loo noqdane qof walba naftiisa uu ka arkayaa raaxada, basaadada, yacni nadiifnimada, deganaanta iyo waxa uu ka helaya runtii macnahane. laakiin markii ilaahay adiidda waa maxay? kadeed, ciqaab, ciriiri, maantana u hoggaansan qof kaleeto, inta laga kala jiito runtii aad iyo aaday dhibkeeda u leedahay. fakaأnamaa khara min الsamaa fatakطafuhu طayru aw tahwi bihi الriixu fii makaanin sahiiq sida ilahi u yiri subxaanahu caza wajalla. qof xaalad cirka soo dhac ku sugan ayaa noqonaysa runtii. fasharu اlcubuudiyaati waxa weeye cubuudiyatu ligayr illaahi. inaan ku baraaruna rajayn ilahi idinkiisa. halkaas waxaan ku ekeynaynaa xalaqadeenna. xataa nalqaakum naquul asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.